talabaad waxa weeye roolka representant-gan dunia idii sheego waxaad arkaysaan representant-gu wax kala maaha waa nin albaabada wasiir ministre des affaires étrangères xaggan oo kala garaacayo oo leeyahay warag baa naga xidhan dawladda waxba aan siinina dulun baa nagu hayaay naga daaya iminka waxaan wadaa aan idii sheegaya petition aan doonayna aan hordhigo ministre des affaires étrangères maalin dhow in nin kasta oo reer Djibouti oo passport Canada haysta markuu Djibouti ka dhaadhacon la dhibaateeyo maxaa loo dhibaateynaya meel baa la gelaya wala dhibaateynaya waxaan u adkeysan karna maaha waa inaan u sheegno ministre des affaires étrangères aan ka nidhaahno waxaasaa ku dhaca dadka passportka Canada haysta ee originka reer Djibouti yihiin waa xaaladaha soo kala ka shaqeynaa talabaad waxa weeye comité de soutien ayaa jira comité de soutien idana waa la shaqeeyaa kamana sareeyo waan la shaqeeyaa isku mid baan nahay comité de soutien waan la shaqeeyaa ninka idigu yiraahdo ninkaasaan ka sareeyaa waa been weey waan la shaqeeyaa hadii albaab la garaacayo hadii lacag la ururinayo hadii wax la sameeynayo hadii la mudaharaadayo waan la joogayaa waan la shaqeynayaa comité de soutien gu uu iga importance yaaniga waayo inta uu ummadda ku dhex jiro waa loogahay marka kamana sareeyo isku mid baan nahay waan wada shaqeynayna waxa kale ay qarsoomay inaan Edmonton iyo Toronto maanta laba comité de soutien laga sameeyay waa kan inamadii Edmonton way iman kari waayeen oo tempête de neige iyo waxba arrimaha dhacay dawladka waqtigan wadankan waqtigan aan ku jirno inuu yahay waqti aan wanaagsanayn laakiin day way jeclaayeen ka soo qayb galaan arrin yar baan doonay inako oo soo maqlayna oo walaalahayna comité de soutien-gi oo tawaan la hadlay president-gi waan la hadlay Maxamed Xuseen walaalow ka soo qayb gal baan dhig waana walaalkay imikana waan idii sheegay waan nin walaalkay waa wuxuu ma iman karayo waana isku noqonayna haddana waan ku noqon doonaa si aan wada shaqeyn karno waxaasi waxa weeye walaaltinimada siyaasaddu kulliba way iska leedahay urguf laakiin waxaan idii sheegay inuu walaalkay yahay aan la shaqeynayo oo bariya saadama la shaqeynayo استراتيجية هذا بس صعدة أيام دنيا كحظه وحوي كلي إن مظاهرات يو والله بلا بدونا و حنتن يبرف كان بان هرتي سيري دتكي مالين كستا مورن كرتي دت كان موقتها صباحا وين لا فهموا ودتكينا إن محي فايدة كيني سنة وين سويديني هذا يقول ويا مظاهراتكم وينو فايدة إنه كانوا أم وينو واحد دتكي وجالسين كرو لكن كل يبقى مظاهرات يو ويمن دونان إن تورنيو كل يبقى أتوه دحدينا ويكدي عدونان إن ضد بدنو تجنو عن حق دقالة إن هيد عن ألعاب أورورينو عن أدري كرنو بدنكي وحن ودا عدي عن كرو إن الكونتينر ألعاب عن أورورين كرنو عن أدري كرنو بالبلاء دتكين ولا لهني دتكيني دبعت سنة تاسنا إن كستون سوق إنه مركين نقطة إن سمر كده يتيجا ويو دتكو مركوي يصبح كران باربيكيو بالله سمين كرا وحبال الله سمين كرا إن كستو يدي أدق تعييركي تسوى وطلبات تصدحاتنا وحوي دي كل يبقى قرالنا الدواد أكتين أنت نكي وحقوري كرا إن وان قرنا أنت ينكرنا وان قرنا إن دي أدون كلو تبيو إن دبات تشرتو إن علوم دين النجاح ريهين إن عدالة دي تشرين إن هدي الجور إن زكريا ولا حريرة إن رابورة ويصدر إن دراد اللامكا إن وانجي يميلو بدن حاجة أنت أنكرنا وان بدنا لكن نينك استبد جعنت أجل يوسنا عشقيان لنا وحن كل ما يا واحد ولا سوق يسمى ملايا إن ده وده هذا إن كالصعدة حكومة يو إن يسن إن
هدي قرن وان لحري ذا وضيدي إن arrimo badan de waan ka wareystaa intii ay dikarayaan amba de intii ay ogiin aan qaadi karayo de lawa qof kasta way inuu qaadi karaa moogti intaan baa la ii sheegi karaa in marka waxa weeye in adan abdu baan wala hadalay in laba cisho koordid wixii guur ku badii waan walaadnaa anaku iyagu man ku suginaa in iyagu man ka suginaa imika xukuumaddu man ka suginaa inay de miiska soo fadhiisato laakiin aan ka dhankayga way naga dhantahay wixii aan doonaynay waan u tabinay de waan sugaynaa waana ogtihiin inuu markii ugu dambeysay yiri de madaxweynuhu waan soo dhaxgelaya de waxaan u maleeyaa de odayadu waa odayo siyaasiyiin waa rag waaweyn waa rag garanaya de siyaasaddu waxay ka dhigan tahay marka way rajo way jirtaa oo rajo badan way jirtaa kullina de xurgufiyadu badan oo de la isku haystaan way jirtaa laakiin insha Allah bismillaah karim inaku hadaan nahay de USN horta toogu horeeysan suugaynaa waxa weeye wada hadal miis la soo fadhiisanaya ma jirayso ilaa culimadii albaabka laga furay soo baxan taas horta waa shuruuda ugu horeeysa weeye wax wada hadal oo dhacaya ma jiro ilaa ay ka soo baxaan xabsiga dabadeed hal isku soo noqdo waxa kale insha Allah dawaan suugaynaa in si degdega gordho waxaan idila hadlisiin doonaa oo inoo soo jeeda caawa daraadeen jaamaca marre oo marka yiri telefoonka ii soo dir mail baan la hadli doonaa iyagoon reer Canada marka insha Allah bismillaahi bisagan uu salaami doonaa wixii kale aad su'aalay weydiinaysaan markay dhamaato waxaan idin siin doonaa 10 minute amba 10 minute ilaa 15 minute waan idin jawaabi karaa waan mahadsantiin